haddaba sidee bay tahay sida idaacaddaasi looga hor istaagay inay lahjada joojiso, maxaase amarkaasi keenay, yaase soo rogay? waxaa arrimahaasi ka wareysanayna milkiilaha idaacadda raadiyo baraawe ee afka ama lahjada la yidhaahdo barwaaniga laga joojiyey, Fu'aad Shooble Kafay oo ah milkiilaha idaacaddaasi. telefoonka ayuu si toos ugu jiraa. Fu'aad, marka hore waan kusoo dhaweynaya. cabdicasiis okay, aad baad u mahadsan tahay, waan kaaga mahad celinayaa xiriirkaaga wacan. sidaad ka warqabtay 25 maarch sanadkii 2018 ayaa la aasaasay radio baraawe. waayahay haye marka cabdicasiis luqadan barawaaniga muddo 4 bilood ka hor ayaan ka hirgelinay radio baraawe, maadaama bulshada reer baraawe ay iyagu codsadeen in afka barawaaniga wax loogu sheego si ay u fahmaan. waa gartay. yaa idinku amray ama amarka ka soo baxay maxay tahay in la joojiyo in barnaamijyadii aad lahjadaasi ku tabin jirteen? yay tahay ma maamul gobola, ma maamul degma, mise maamul dowlad goboleed ee koonfur galbeed ee amarkaas uu idinka soo gaaray? yay tahay cidda idinka joojisay barnaamijyada inaad lahjada ku tabisaan? cabdicasiis aad baad u mahadsan tahay. marka ugu horeyso annaga awaamiirta waxaana soo gaarsiiyey maamulka degmada baraawe oo idaacadda noogu yimid oo inoo sheegay in gabi ahaanba aan joojino barnaamijyada afka barawaaniga aan ku tabinayni oo bataatan baanan ku hadli karin afka barawaaniga ah. ugu dambeyntii iska dawareeg ka badan kadib isku warwareeg badan maamulku waxay noo cadeeyeen markaasi waxay ka dambeeyey in wasiirka warfaafinta uu arintani ka dambeeyey, uu isagana soo diray, uu maamulka soo wakiishay, uu yiri idaacaddaas laga joojiyo afka barawaaniga. waayahay adinku ugu dambeyntiina wasiirka warfaafinta maanta ayuu ka hadlay BBC-da isaga oo weliba afka barawaaniga ku tilmaamay wax aanan jirin oo luqad ajnabi ah, dadka ku hadlayna uu ka dhigay ajnabi. taasna waxay ka dhigan tahay in daddan oo qoomiyad Soomaaliyeed ah in Soomaalinimadii laga saaray. waayahay adinku marka hore ma ku fikirteen in lahjadaasi aysan ku jirin kuwa dastuurka lagu qoray ee Soomaaliya lagaga hadlo, mise waxaad ka doorbiteen xamaasad kale oo idin qabatay? maxay tahay sababaha u dooratay inaad lahjadaas wax ku tabisaan? cabdicasiis aad baad u mahadsan tahay. halka annaga aan ku noolnahay waa baraawe. warbaahin sideedu waxay u shaqaysaa bulshada luqadda ay fahmayso 100%. waxa mudnaanta muhiimadda ay tahay in la siiyana waa in bulshada afka ay hadlayso lagula hadli karo. masalan wadaadka daaciga ee dadka diinta gaarsiiyey marka uu rabo inuu bulsho la hadlo waa in luqadda iyaga ay fahmi karaan ay fariinta ku gaarsiiyaan. warbaahintuna waxay wadaa fariintuna waa in bulshada luqadda ay fahmi karta ay ku gaarsiiso. cabdicasiis baraawe radio baraawe 2 barnaamij kaliya oo si toosa ugu baxa raadiyaha ayaa ku bixi jiray afka barawaaniga iyo wararka kooban. waa 3daas oo kaliya, ma ahayn in idaacadda gabi ahaanteedba barnaamijyada ka baxayo wararku si toosa afka barawaaniga ugu bixi jireen. waxaa ka mid ah afka maxaatiriga ayaan si toosa idaacaddu inta badan aan diiradda ku saarnaa, laakiin barnaamijyada qaarkood ayaan af barawaani uga dhignay, sida barnaamijka barbaarta la yiraahdo ay bulshadu qadadka telefoonada ugu soo qayb qaataan, sida barnaamijka malafayo oo kale oo subaxii soo galo xaaladaha xaafadaha iyo dadka sida ay ku wabriisteen aan ku wareysano, oo iyaguna afka barawaaniga ay qadad telefoonada soo wici karaan oo inagu hadli karaan. waa barnaamijyadaas. wax weyn oo hadda ku jira oo dhibaato ah oo aan isdhihi karno luqadan way horseedi kartaa ma jirto. afkan dad ayaa iskale, deegaan ayaa leh, 7 qarni in ka badan ayaana lagu hadlayay. caruurteena ayaa ilaa hadda ku hadlaan, kuwa caruurteena ay sii dhali doonaan way kusii hadli doonaan. luqadan waa luqad jirta. marka cabdicasiis waxaan aad iyo aad ugu xunnahay hadalkii wasiirka warfaafintu uu warbaahinta ka yiri oo ku aadanaa yaa la yiraahdaa reer baraawe luqadda af barawaanigu maxay tahay xaggeesa ka timid. arrintaasi waa arrin aad loogu xumaado oo shacabka reer koonfur galbeed gaar ahaan kuwa baraawe ku sugan ay ka xun yihiin. waayahay ilaa hadda ma sidiiba idaacaddu aysan u joojisay ama aysan u tabinaynin in lahjadii ay markaa barnaamijyada kaga bixi jirtay ee af barawaaniga, mise dib ayaa nala fasaxay? wararka qaar waxay sheegayaan in guddoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose oo hadda qoraal facebookiisa gordhow soo dhigay uu sheegay in dib loo fasaxay idaacaddaasi. howlaha xaggee bay wax idiin marayaan?
xaggee bay hadda markaasi idaacaddu iyo barnaamijyadii aad kasii daynayseen waxay idin marayaan? cabdi casiis, mar hadda laga joogo 2 saacadood ka hor gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose ayaa page-kiisa Facebook soo dhigay awaamiir uu markaasi maamulka degmada Baraawe uu markaasi ku yiri waa amar inaad radio Baraawe madax banaanidiisa siisaan oo aad u ogolaataan barnaamijyada afka Barwaaniga ee ka baxa. bulshadu waxay soo jeedisay cabashooyin badan, sidaa darteed maamulkii muddo hadda 5 daqiiqo ka hor ay iga tageen oo waxaan ku shiraynay gudaha idaacadda si arrintii dhacday looga arinsado. waxaana ugu dambeyntii go'aan lagu gaaray in maamulka gobolku uu amar soo rogo, maamulku degmadana ay noo ogolaadaan inaan afka ama luqadda Barwaaniga aan ku hadli karno, idaacaddana lagu baahin karo. taas ayaa la isla gartay. maamulkana waxaa lagu wargeliyey in ay raaligelin siiyaan shacabka ku nool magaaladan Baraawe. arrinta ayada dib ayaa loo fasaxay miya in idaacaddii ay ku hadasho lahjada af Barwaaniga? dib ayaa loo fasaxay. maamulka gobolka Shabeellaha Hoose mudane Ibraahim Aadan Cali Najax ayaa dib u fasaxay. hase ahaatee wasaaradda warfaafinta ee maamulka Koonfur Galbeed wasiir Ogaas Xasan weli wax warama ka soo bixin oo dhankeena idaacadda radio Baraawe ku aadan. aad iyo aad buu mahadsan yahay. kaasina wuxuu ahaa Fu'aad Shooble Kafay oo ah milkiilaha idaacadda radio Baraawe oo markaasi telefoonka inoogu warramayay isagoo ku sugan degmada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose. daawadayaal waxaa xusid naga mudan inaan la xiriirnay wasiirka wasaaradda warfaafinta Koonfur Galbeed Ogaas Xasan Cabdi Maxamed oo markaa telefoonka in badan aan ku raadinay laakiin naga jawaabi waayay fariimihii wicitaanadii aan u dirnay si aan wax badan ugu weydiino hadallada ka soo yeeray iyo joojinta idaacaddaasi Baraawe ka howlgasha afka ama lahjada mayga ee barnaamijyada ku sii daynaysa, iyadoona xusud mudan tahay in waqti dambe oo caawa dib loo fasaxay idaacaddaasi in afka ama lahjada Barwaaniga ay ku hadli karto oo maamulka gobolka Shabeellada Hoose amray in la sii daayo. ogaaska dhowr mar ayaa la xiriirnay wasiirka warfaafinta Koonfur Galbeed mana suurto gelin in teleefoonadeena uu ka jawaabo. barnaamijka dabagalka wararka ayaa la socota.